السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتينا waxaan idin rajeynaa inaad ku daawataan fiidiyoga caafimaad insha Allah. Marka hore aan ku salaaxay xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam sida ayagana ajaad u hesho anigana aan u helo ajar oo labadana sida aan ugu faa'iideysano. Marka xigta barnaamijkeena sheekooyinka qisooyinka sheekada maanta waxay noqon doontaa qiso aad ka faa'iido doonto. waxaan ugu faa'iido doontaa laba qaybood. haddaba waxaan ku sheegi doonaa markii qisada aan ku dhamay ka bacdi aan bilaawno qisadana. ninkan wuxuu ahaa nin ribaadiye ah. wuxuu soo qaatay faraskiisa. waxaana jirtay abaar way soo baxeen. waxaa wadadii ku dhimatay faraskii uu asiga u watay. kadib uu soo baxay uu soo lugeeyay wuxuu ku leexday qoys meesha degnaa ama qabiil meesha degnaa. qabiilka ayaa ninkii marti qaaday oo guri siiyey, jiif siiyey, xaaladis caafimaad ka daweeyey. wuxuu u baahnayna way siiyeen. 3 maalin ka bacdi marti soorku waa 3 maalin. ninkii 3 maalin ayaa la marti sooray oo wax walba u baahnaa heegan loo ahaa. maalinkii afraad ayaa ninkii loo wacay. waxaa la lahay marti soorkii uu dhamaaday. marti soorkana sideedaba waa 3 maalin. 3 maalin ka bacdi marti ma tiid. haddaba aan isbarano isoo dhawow. halkan soo fadhiiso. meel ay fadhiyeen. meesha soo fadhiistay waa la weydiiyey magacaagiisa noo sheeg allahay. magaciisa wuxuu dhahay magacayga waxaa la lahaa madar. yani madar waa roob ma ogta. yani asi wuxuu dhahay magacayga waa madar. okay dhaheen magaca hadduu madar yahay haddana waxaan u baahanahay dhahay dhaheen hor biyo maadaama ay abaari jirto biyo la'aan aan la joogi karin. waxaan u baahanahay marka barwaaqo roobka aad sheegaysid magacaaga ah oo aad adiga hayso nasii aan qabowsanay. dadkee dhahaya. ninkii wuxuu dhahay walaalayaal aniga roob ani awood uma lihi. ilaah ayaa wax shaqo ku leh ani shaqo ma ku lihi. laakiin waa magac kaliya ay la jeclaadeen waalidkayga. dadkii qabiilka meesha way ka diideen. waxay dhaheen yow magacaaga maadaama uu roob yahay waxaan kaa codsanayaa roobkana siiso oo aan qaboobsano oo aan barwaaqaysano iyadoo aan adiga kusoo gaarin wax dhibaato ah. hadda waa codsi si nidaam ah ayaan ku weydiisanay inaan barwaaqo ayaan rabnaa inaan helno marka roobka na siiyo. ninkii wuxuu dhahay anigan roob shaqa ma ku lihi. roobka allah ilaah ayaa baxsho aniguna ilaah ma ihi. roobna meel aan kaga keenayo ma lahan. anigaa teeda u yaaban. haddii barwaaqo oo aan gacanteeda ku jirto anigaba sooma lugeeyeen farasteedii ma dhimateen. aniga sooma haddii ay gacanteeda barwaaqo ay ku jirto iyo roob aniga sooma lugeeyeen faraskii aan watana ma dhiman lahayn. marka waxaan ka codsanaa inaad iga dhaaftaan arrintaas aniga ma awoodi waxaas. ninkii u sareeyay qabiilka wuxuu dhahay niyow laba mid kuran adiga waa ama inaad hadartan waa nabad qabtaa wax dhibaataa markuu haysato ibna ma kusoo gaarin gacan laguma qaadin. marka si nidaam ah oo hadda jirkaaga u bad qabo roobka inoo sii. hadhoodii markaa yareena waa insiina roob markaan gulaacan ka bacdi. ninkii wuxuu dhahay niyow aniga shaqo ma ku lihi roobna ma hayo. waa kaasa saas miyaha. okay ninkii qabiilka madaxda ah wuxuu dhahay ninkan hal garaaco isaga qidam roobkana siin doonay. ninkii uu cabsaday xoogaa nin wuxuu dhahay garaacina aniga roob shaqa ma ku lihi waa in baryaa iga wareejiya roob ilaah baxsho roobna ma hayo aniga ma ilaa roobkana sii hadirta waan qabtaa roobkana sii. waa u diiday ninkii jugta lagu bilaabay
ولا قراعي ولا قراعي ولا بوبسي ninka marka dambe wuxuu arkay meeshan dadkan inaysan ka baxsanin markuu arkay oo si kasta wax u sheegay dadkan way ka qaadan waayeen in roobku isaga haya ay masiin maadaama magaciisu asiga la baxay roob inuu roobku uu qarsanayo oo dadkan ayaga u diidayo ay ayaga aamineen ninkan marka wuxuu dhahay meel ugu baxsada ma hayo Soomaa ninka marka dambe Ilaahay ayuu bariyay Ilaahay wuxuu dhahay arintan ay haysto Allah aniga roob shaqo kulli ربنا ما هو نفتي له البادي إلى وكبريا سيدي أيونيكي إلهي الدعاء وأقبلي أركيا أمر ضروري سحران رب يا سيدي كويمت مركز حدين ما أنت رمنا كلنا بيان السي وحنا وديدي سي جوكتنا ربتنا وح أردنا سي جوكتنا لما ما أنت رمنا كبريا سي ما مقول هذا لي وأكو قيماني وحنقول أنا ساحة وقعم كو قادينو بينا سي أمبر واقعسانو أديقنا سي النظام سيغتك ميالدان وأديد هذا مكان كو جوكيني أو درباحني أو قرعني أعرب مسيني ساحة نيكي سيدي أيالو فالساحة هذا قصة مركا أما الشاكلة معاك أغبحي لو دي هراء مش الشاكلة لو ما ديت ما دك وضوءه مرتصورك إنه يهي سدح مالين مرتقاتك موقفك مرتدأه سدح مال أيالو أقول لها إنه مرتقها هذا ومرتقاتك مرتصور إنه مرتقول يسك هذا وسدح مالك بعد إنك اسم مرتماها مركي حكتاو حيتها وعكبرني جاهلني ماذا نيكا هذا إيمان كان ماذا فيريا نيكا نبن أدم رب مش هقول ليه رب إله بعشة كور نيكي أو قراءة لا رب نسي هذيك لو أهم قدافع وجود لنا عمل وجاهل ماذا كمتة مثل حد أجتم ده قفك هدو أسيد بني هاي ودبعتها هستو وإلهي بيدستو إنه الله وحبك أقبل عليه أبدا إنك يقول له هواي قفك ممكن يبني هاي وحاد إب أو هستو هدو الله بريو إلهي وك أقبل الدعاء ديس قصة ما شمانتا قصة تيكو إكتهاي قصة ما أنت تيكو إكتهاي قصة ما أنت هلكا أيكو إكتها صحابي وحينا جينا عاف ما دي برواق إن شاء تعالى بدأنا وتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت انا كبحين امر معهن قصب معهن وعدسي قصة لحبيبك أنا محمد صلى الله عليه وسلم سياد أديك أجراد وهشو أني ولا أجر وهلو وأن لو إنه سيدا أن أوفى إدي سنو وحبك ما دمي سهل مرة وأتر هذا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحبه كما دمي مكان دمي سو أوكي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته